قف كويرة حمر دتك وكل حياة وحير لنا بس هدوك هيلا حمر دتك وكل حياة أنا هو إذا دتك كل حيسان وحاس أي ليهن النكارة حمر النكارة أي كجدكتي قدني يحردني حنتي الصومالية كشكاية هدي مجال قروح بدن أمنية شغالة نصبة هدي على كورو هي كلا دمبين يا الدولة نما كتشرته هدي أهان لهين محي سمين لهاي مركان ورير بتلان هدان كو عند فدراليزم قولك استحافظ هذا حدثته وحاسو كلام كعبنا وأقوياء كودي وبروفيسور وبي اتش دي هولر كودي حمر ونوكا ورادر أدوغ يارو وكوتش ناي تايرين تكوحر نكا قادان ماينة أدرو قرحا كعشو أقوان تادو حسما يسو مدقا مقالة حبرها يعرورتا كوغنو نبضا كسيحنا عندك عمربتي حسنا مدحوينا نوماها حمرنا عاصمان نوماها دوبا فتاة قشو أدوغ اسكوفي لو قرحان يهوكتان يأدون كيرنا نعي مسق هدو يور حمل بكسو يريا قرح هدو يور حمل بكسو يريا هوق يا بهدي حمل بكسو يريسا مغا خما سوماليدا ugu filan duuduuba xamaro adeer hagaagso inna kuwa socotay mana rabna anagu iyo magaalooyinka qaalisan oo ka amni badan baan leenahay inta aqoontaadu ma keenaysa PhD ba sheeganaysa malahiga maayo billaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maanta qubanaha waxaan ku dul istaagayaa laba qodob qodobka koobaad waxa weeye odagii xasan sheekh maxamuud ahaa oo xalay dhuusan mareeb ku uunsanaya dhowr reerka inta u yeertay su'aal ay weydiiyay ayaana hal faar ma idinkaga wada qof aan daba galay baa daba gashay qodobka labaad aan dul istaagayana waxa weeye ninna xanti ma moogay laba reer oo midna la yiraahdo hawiye midna la yiraahdo dir waxa aniga ayuub ay yaqaanaan inaan qabyaalaysta ahay laakiin maanta waxaan rabaa cadayn inaan tuso qabyaalada inay ayagu iiga horeeyaan waliba qabyaalada ay ku xun yihiin waxaan rabaa professorada iyo madaxdoodu siday qabiilka u adeegsadaan inaan wali xataa boqolkiiba konton anigu adeegsan inaan tuso maanta qodobkaas si fiican baan u qaadaygaa qodobkaasna waliba waa gardhigasho nin kastoo wax garad ah gar waa loo islaamay baa qodobka u dhiibayaa oo gardhigasho u dhiibtay haddaan khaldanahay hoos igu soo qor hadday khaldan yihiinna hoos igu soo qor korroga laba saar aan ku hormaro odagii xasan sheekh maxamuud ahaa oo xalay dhuusan mareeb ku uunsanaya baa yidhi su'aalaha la weydiiyo barnaamijka dadweynaha waa dhegaystay cabaar baan dhegaysanayo mis inna lillahi wa inna habar baa soo kacaysa xasan quruco dagaal baad wadaa wadankaad xoreynaysaay horay soco su'aashaan ku weydiinayo waxa weeye soo daabulaya moogta markaasay waxay leedahay al-shabaab kaaga qaban doontid ama layn doontid meydkooda xaggee ku aasaysaa su'aalahaasi u badnaay mid ka mid ah ayagii marka xabadda faarta aydi wada waxa weeye qof ka mid ah nin naag ma xasuusta wuxuu ahaay jawaabtiisi baan hayaaye oo ka bixiyay baa wuxuu ka weydiiyey xagga qabyaaladda xasan su'aasha markii la weydiiyey qabyaaladda mufti weyn oo Soomaaliya buu isku bedelay nin qabyaaladda neceb buu isku bedelay mar uu ku faaloonayay qabyaaladda iyo inaan la adeegsan inay xun tahay iyo qabyaaladda laga cararay iyo inaysan wax ku qabanaynin iyo nin reerkaaga meesha inuu joogo iyo inaysan joogin inaan wax dan adeeg kuugu jirin oo geeraaga inaad dhaqatid danta kuugu jirtaa waxa uu yiri hadalada iska mid ahaa sida tan horumarkaana gaarsiina nidaamkaana u sameeyna nin dhihi waayay oo maankiisu gaari waaya ku rafta reer raadana anaga xukun horta maxaan ku haysanaa anaga ma reer bilgeereed dhulkaas ku ilaashadaan wax min xukumaan aba xukun ku socotide waxa lagu xukumaysan ma sheeg billah alayk reer kun kilomitir ma u jirto geer ku ilaashadeen reer raadana dawladda kuma jirto ka maqanna xaana laga wixii halka markay maraysa marka waxaan soo xasuustay war xasankaani ma yahay xasankii 2022 bilowgeedii mirinaayo ku jiray xasankii ma yahay tolaayay wiilkaygii farxaanow dhiiqaad cagaa kula jirtaa ka soo bax anaa ku xiga ku khudbaynayay xasanku ma yahay kii
qabiilkiisu lahaa isoo aruuriya geela oo ciidanka geela u qalayo gurigiisa geela lagu qaybinayay ma yahay ninku tolaayay xisbigiisu ninkii lahaayeen farmaajo waa mareexaane kaca ninku ma yahay war maxaa isbedelay maa wax isbedela waxaan ka arkay kursigii shalay uu geela u bireynayay soo orday u lahaa ilaa ceel dheer iyo meesha yaa masagawaa uu macawisleeda oo keenay oo magaalada soo galiyay oo uu geela u qalqalayay kursigii inuu ku fadhiyo baa ay soo baxday waa markaan leeyahay war madaxweynaha yagu waa munaafiq maxaa la dhahaa marka ma caayayo caynayga ma mudna munaafiq muxuu yahay waa qof uurkiisa ama ficiladiisa iyo afkiisa waxa ka dhacaya aysan islahayn xasankii shalay geela qalayay mahadna kawaanka u bireynayay mahad kawaanle uu mindida u wado geela u birbireynayay asaguna geela ilaa masagawaa iyo ilaa ka keenayay meesha la yiraahdo ceel dheer ka keenayay farmaajo waa mareexaane soo bax lahaa xasanku ma xasankii saraakiishii janamadii ciidamada lahaa wiilashaydiyow annaga is xigna saraakiil baa tihiin kaalay dadkiina annaga nala dareen noqda kasoo taga farmaajo dhiiqada kasoo baxa qabiilkiina soo raaca xasankii lahaa xasanku ma waa kelmadda aan idin leeyahay madaxweynaha iyaga waa munaafiq oo afkiisa iyo dhegihiisa soo maqlaan ficilkiisa iyo isma leh ee haddii alla kuu roo yahay afkiisa wax ka baxayaan xasankana leh in qof reerkiina aad meesha ka weydid ama uusan dowladda kugu jirin wax macnaha kuma jirto oo haddii alla kuu roo yahay adigu geelaaga iska dhaqo maxaa kaa dhex yaala haddii alla kuu roo ku faraysaa qof shaksiyo meeshan kuu jooga waa xasanka ciyaalkiisii xaafadiisii ilmi adeertii adeerada kuwa u ahaa sodohdii sodogii waxaba xilal ku safay wey ummadii kalena banaanka kaga istaagay yiri iimaanka allah idinka qaade shantan waa shantaydii waa xasan ka yiri wacaysle iyo muxuu ahaa haddii alla ku rooyahay muxuu ahaa cali gaafow xamaasha ummadda kalena xaq ma lidin naga jooga waa xasan ka yiri hadday ka soo hadho hiraab ha qadeeyo waa abgaaliyo habar gidiri hawiyaha kale baktigaa u xalaale waxaa nagama gelin xasankaasa qabyaalada iga wacdinayo ileh geelaaga iska dhaqo qofka meeshaan jooga waxba kuguma yaale madaxweyne way fiicnaan lahayd calooshaada iyo haddii ala kure ficiladaada iyo luqadda aad ku hadlaysid inay isleeyihiin tanina waa qayb ka mid ah cadaymaha noo cadaynaysa inaad tahay munaafiq inaad tahay inaad musallima kadaab ninkii la oran jiray aad macii tahay iyo cabdullaahi bin salool iyo raggaas inaad macoo tahay wadadooda haysid waa midda keliya tusaysa khayr allah kusii fogaan maya madaxweynaheena aayar anigu oraan sheeg yaan lagu dhibsan mucaarad baana xasan hadduu dhuusa dhiig ka siiyo mikrofon baan saaraya mikrofon noociisa la oran jiray magaranaysaayo mawlidyada haddii lagu rooyo dadka lagu yeeri jiray iyo talaalada lagu qaadi jiray noocaasaan ku qabanaya hadduu dhuuso remember wax kala mucaaradnaysa waxaa iga badan 5 sano ee farmaajo fadhiyay waxa uu ku hadli jiray iyo luqadda uu maanta ku hadlayo daily was dhacdigaya xasanow taasaa inoo ballan qodobka halkaasaan dhigay qodobkayga labaad aan rabay inaan dul istaago waa gardhigasho gar waa loo islaam Soomaali baa gartaa u dhiib waxaa Soomaali ku amaahdaa